أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cali xirsi kaarshe oo ku magac dheer cali kabayre waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka iraahdo guddigii dib u heshiisiinta uu ku magacaabo Khayre dib u heshiisiinta Galmudug balse anigu aan u aqaan guddiga dib u baabi'inta iyo dib isku dirka Galmudug tagay magaalada Gaalkacyo la kulmay dad ka mid ah dadka jaaliyadda Gaalkacyo qaarkood iyo go'aamo aan ka arkay in laga soo saaray shahaadooyin lagu bixinayay dad odayaal oo hadlayay oo mowqifyo iyo go'aamo ay yiraahdeen waa la gaaray ayaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo si aad la socotiinba markii uu dhacay afgembigii lagu afgembiyey madaxweynihii sharciga ahaa ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Khayre uu ku afgembiyey laguna qabsaday xaruntii maamulka kala hore bishii hore waxaa la waday ama la qorsheynayay dibadbaxyo iyo dhibaato ka dhan ah shacab weynaha Galmudug iyo maamulkoodii iyo dowladdoodii waxaad ogtiin in guddi la magacaabay oo Khayre uu magacaabay guddigaas oo sidiisaba khayru sharciya maxaa yeelay guddi waxaa sharciyan u leh inuu magacaabo guddi dib u heshiisiin guddi doorasho intaba waxaa sharciyan u leh dastuurkana u fasaxayaa inuu magacaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug guddigaas uu magacaabo Khayre ee ka koobnaa 12 xubnood madaxweynaha Galmudug ma uusan magacaabin ilaa iyo haddana madaxweynaha Galmudug meel isku casilay ama uu xilka iskaga dhiibay ma jirto warqad uu qoray waan aragnay oo leeyahay waxaan ku wareejiyay arrimaha doorashada iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah wasaaraddeeda arrimaha gudaha laakiin warqadaasi warqad sharciyana sharciga waafaqsan ma ahayn sharcigeeda hay-adaheeda sharcigana lama marsiin baarlamaankii dowlad goboleedka Galmudug lama marsiin golaheeda wasiirada ma soo saarin oo ma soo ansixin sideedaba waxay iska ahayd maxaa la yiraahdaa isheeg warqad uu madaxweynaha Galmudug uu ku tusahayay qoladii nabadii nolol laga joogi waayay Galmudug laga celcelinayay bal haddaad adinku xallin kartaan orda soo xalliya warqad quus ayay ahayd kadib markii ay dhibaato badan u geysteen maamulkii sharciga ahaa madaxweynihiisii hay'adihiisii dowladda curyaamin ku sameeyeen dhaqaale ahaan u burburiyeen dowlad ahaan ula dirireen sharci ahaan ay maaragtay isha ka soo horjeesteen inay wixii uu xaq u lahaa uu helo ayay waxay bilaabeen in ay maxaa la yiraahdaa ishagan sideedaba ay yiraahdaan bal uu yiraahdo madaxweynuhu bal orda soo xalliya haddaad xallin kartaan mana xallin karaan ilaa ay haddana waa ujeedaa inaysan xallin karin calaa kulli xaal guddi baa la magacaabo 12 xibnooda magaalooyinba tagtageen magaalooyinka qaar waa loo diiday nooma imaanaysiin baa la yidhi kuwana way tageen laakiin kalama aysan soo kulmin sidii ay rabeen shalay ayaa waxaan arkay fiidiyoyaal la soo duubay oo la leeyahay koonfurta Gaalkacyo beesha saacad ee gobolka Mudug degta waxay ogolaadeen inay tagaan gogosha laga fidiyay Dhuusamareeb gogoshaas oo aan u aragnay inay tahay gogol lagu carqaladeynayo shirweynaha ka socda magaalo xebeedka Hobyo ay beelweynta Habargidir ee udubdhexaadka u ah maamulka Galmudug ay uga tashanaysa arrimaheeda maxaa la yiraahdaa siyaasadeed arrimaheeda dhaqan arrimaheeda dhaqaale iyo arrimaha ku saabsan gobolka iyo guud ahaan beesha halkaas iyadoo gogolitaalo
ra-iisul wasaarahan lagala hadla markii uu tegey magaalada gaalkacyo la yidhi gogoshaas baa taalla ha carqaladaynin isna uu ogolaaday ayaa haddana wuxuu ku dhawaaqay inuu ku qabanahayo shir magaalada dhuusamareeb oo halkaas beelaha lagu heshiisiinayo waxaan leenahay beelo reer galmudug oo isdagaalsan ma jiraan beelo reer galmudug oo iska soo horjeedo oo maaragtay maxaa la yidhahdaa islaynahaya ma jiraan waxyaalaha yaryar oo siyaasadda ayaa la isku haystay wayna awoodaan inay xalistaan danahoodana ay ka tashtaan waxa keliya oo dhibaatada ku haya waxay ahayd dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyey maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayagii ayaana kusoo duulan ayagii ayaana qabsaday marka ma garanayna annaga dib u heshiisiinta ay ku dhawaaqayaan dhul ay dadkiisii iyo dalkiisiiba xoog ku qabsadeen dhul ay burburiyeen dhul ay dhaqaalihii ka jareen dhul ay cunaqabateeyeen dhul ay u diideen maamulkoodii inuu dhaqdhaqaaqo ma garanayo maanta dib u heshiisiinta iyo waxa ay ugu yeerayaan iyo shaatiga dowladeed ay u soo gashanayaan dowladdu sideedaba ma ahan shakhsiyaad ma ahan khayre iyo wasiirada la socda ma aha dowladdu waa service waa public service dadka u shaqeeya madaxduna shaqaale ayay u tahay dadweynaha iyo shacabka marka labadii sano iyo barkii ay jireen wax oo haddii ilaahay kuu roon yahay isheeg nidaam dowladnimo oo ay u qabteen dhulkaas galmudug ma jirto waxbarasho uma qabin iskuulle uma furin caafimaad umaysan maxaa la yidhaahdaa isheeg samaynin waddooyin uma dhisin shaqaale mushaara ma siin maxkamado iyo instruction dowladeed oo kale ma samaynin dhismayaal institutionisa ma waxaynin xataa iska daa wax kale tababaradii shaqaalaha dowladda loogu talagalay soomaaliya lama keenin dhulka galmudug wax walba ayaa loo cunaqabateeyey xagga waxbarashada laga cunaqabateeyey caafimaadkii baa laga cunaqabateeyey hay-adihii dawliga ahaa iyo kuwii khayru dawliga ahaa dawliga ahaynba labadaba waa laga joojiyey dawooyinkii baa loo diidey wax walba ayaa loo diidey marka maantay waxa lagu aamini karo khayre iyo dowladdiisa iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ee reer galmudug ay ku aamini karaan ee ay ugu dowladeynayaan anigu ma garanayo mana hayno maxaa yeelay dowlad haddii ay markii hore la shaqayn lahaayeen maamulkii galmudug hadday doonaan siyaasaddaas kaga soo horjeedaan arrimaha bulshada oo kale hadday la shaqayn lahaayeen oo kale oo iskuulle iyo caafimaad iyo waddooyin iyo wax un haddii ay maantay wax dadku maaragtay isheeg ay dhimin lahaayeen oo maanta ay u xilan lahaayeen hadday samayn lahaayeen waaba la dhihi lahaaba maaragtay isheeg siyaasadda waa la isku qaban karaa siyaasaddu waa maxaa la yidhahdaa saaxiib ma leh laakiin danay leedahay laakiin ayadoon waxba u keenin oo haddana haddeertaan inta lagu soo duldegay ciidamo loo soo wato ilaa hadda oo raggii ahlu sunna iyo ayagii ay weli is hor fadhiyaan oo meel nabada la leeyahay ciidamaa la keenaya dhul nabada oo amniya oo maxaa la yidhahdaa meesha maanta soomaaliya ugu amniga badan waa dhulka galmudug dhuusamareeb wey oo la leeyahay ciidamaa loo keenaya ciidamadaasoo laga keenaya meesha soomaaliya ugu amniga xun ee ugu dilka badan ee ugu qaraxyada badan ee ugu dhibaatada badan ee maxaa la yidhaahdaa ugu caburinta badan oo magaalada muqdisho laga soo qaadahayo bal ciidamada la keenayo dhuusamareeb ma xamar lagu xasiliyo ma shabeellooyinka lagu xasiliyo ma amniga dowladda iyo hay-adaha dowladda lagu sugo waxa weeyaan ma ahan ciidamo loogu talagalay inay amni sugaan waa ciidamo loogu talagalay inay amni darrada faafiyaan oo ay gobollada gaarsiiyaan oo ay qaraxa iyo dilka iyo caburinta iyo dhibaatada ay dhuusamareeb keenaan oo ay maxaa la yidhaahdaa isheeg xarigga iyo xabsiga ay dhuusamareeb keenaan oo la rabo in dhulka lagu qabsado galmudug oo la rabo in hubka looga dhigo oo la rabo hadhowna sida xamar loogu bahdilay in loogu bahdilo marka waxaan leeyahay arrintaas dadku way ka wada dheragsan yihiin ma ku sii dheeraanahayo balse guddiga gaalkacyo tegey dadka la shiray ay yidhaahdeen waxaanu tegaynaa magaalada dhuusamareeb oo gogasha waan aqbalnay wax ka jira haba yaraatee ma jirto beelweynta saacad go-aankeeda ra-iisul wasaaraha ayay u dhiibeen go-aankeeduna wuxuu ku xiran yahay go-aanka shirka magaalada hobyo ka socda wixii ka soo baxa ayuu ku xiran yahay dhuusamareeb annagu uma diidanin gogol in lagu qabto waa dhulkayagii waa magaaladayadii laakiin waxaan u aragnaa magaalo la haysto oo u baahan xorayn oo ay qabsatay dad aan danaha reer galmudug ka shaqaynayn oo magac dowladeed wata oo u doonahaya inay xildhibaanadii 2021 dooran lahaa ay intaasoo qarasha
iyo intaasoo dhibaataa iyo intaasoo maxaa la yidhahdaa ciidamaha loogu daadguraynayo in laga soo saaro nin doorta Khayre iyo Farmaajo. danaha ay leeyihiin dana shakhsiyadeed ayaa danihii dowladda iyo danihii ummadda Soomaaliyeed iyo danihii qaranka Soomaaliyeed ee nimankii kitaabka u maray lagu aaminay waxay u shaqaynayaan oo maamulada u burburinayaan oo ay ciidamada iyo qarashka iyo dhaqaalihii loogu talagalay la dagaalanka argagixisada iyo dib u heshiisiinta iyo maxaa la yidhahdaa mushaarka ciidamada waxay u burburinayaan oo dadka ugu laynayaan oo dadka ay maxaa la yidhahdaa gobollada ugu duulahayaan in ay ku soo baxaan doorashada 2021 oo ay Soomaaliya 4 sano oo kale ay dhibaato iyo qarax iyo maxaa la yidhahdaa ay ku sii haystaan ayagoo kaashanaya dowladda Qatar ee taageerta terroristaha caalamiga dowladda Qatar ee taageerta argagixisada caalamiga ayagoo kaashanaya ayay oo dhaqaalaha lagu burburinayo ummadda Soomaaliyeed ay Qatar dhiibayso ayay rabaan inay dalka ku sii haystaan. waxaan leeyahay marka go'aanka ina jaamacseed uu kaligiis gaaray iyo oo uu leeyahay waxaan tegaynaa shirka maxaa la yidhaahdaa ishag ee Dhuusamareeb waxba kama jiraan. go'aanku markuu go'aan ummadeed oo masiir ummadeed uu yahay qof kasta ayaa xaq u leh inuu ka hadlo oo masiirkaas uu quseeyo. annagu haddaan nahay beesha Sacad ma taageersanin hadalka ina jaamacseed ka soo yeeray qorshaha ay ubax taaliil wada ma taageersanin qorshaha uu Liibaan Shuluq wada ma taageersanin qorshaha uu maxaa la yidhahdaa ishag ina jaamacseed uu Cabdinaasir jaamacseed uu leeyahay maxaa la yidhahdaa waxaan ku tegaynaa Dhuusamareeb ma taageersanin. haddaanu nahay bulsho weynta Sacad haddaanu nahay qurbo joogta haddaanu nahay dadka dhulka jooga dadka waddanka jooga iyo dadka dibadda joogaba go'aankaas markaan baaritaan ku samaynay 99.9% waxaa la isku raacsan yahay in la sugo shirka Hobyo go'aanka ka soo baxa shirka Hobyana uu noqdo midka masiirka ummaddaas lagu hagayo lagu hogaaminayo. sidaas awgeed waxaan leeyahay guddiga dibu baabi'inta iyo majaxaabada iyo marahabaabinta ee uu maxaa la yidhahdaa Khayre magacaabay waxba ha isku daalinina ma soo socdo Sacad go'aankiisuna waa go'aan cad waxaana ugu baaqayaa ummadda Sacad joogto Hobyo waxgaradka Hobyo jooga waxgaradka magaalada Gaalkacyo jooga waxgaradka magaalada Muqdisho jooga jaaliyadaha dibadda inay hadlaan oo ay mowqifkooda muujiyaan oo ay ka hadlaan inaysan la qabin go'aankaas iyo hadalkii ka soo yeeray ina jaamacseed uu yahay mid asaga u qaasa mid asaga u shakhsiyadiisa iyo go'aankiisana xor u yahay haddii uu rabana uu tegi karo maxaa la yidhahdaa Dhuusamareeb aadi karo. laakiin go'aanka beesha Sacad wuxuu yaalla Hobyo go'aanka beesha Sacad ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa loo dhiibay raallina kama nihin mana taageersanin midka uu ina jaamacseed soo jeediyey maxaa la yidhahdaa uu ka hadlay idaacadaha u soo gudbiyey. intaas ayaan doonayaa inaan ka hadlo oo maxaa la yidhahdaa ishag ku saabsan arrinta ka soo yeertay maxaa la yidhahdaa guddiga iyo nimankii uu dirsaday Xasan Cali Khayre. marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin fiidiyogaana cid kasta oo uu quseeyaha sii gaarsiiyo waxaana ugu baaqayaa jaaliyadda Sacad dal iyo dibadba arrintaas inay ka hadlaan oo ay maxaa la yidhahdaa ishag ay go'aankooda ka qaataan. waxaan kaloo maqlay ina jaamacseed inuu ku noqonayo Hobyana inuu uga soo tagay fasax arrimo qoys dartood oo fasax u soo qaatay asagoo beesha dhan hogaaminaya oo duubkii beesha dhan madaxa loo saaray oo la yiri beesha halkan ka hogaami inuu inta soo dhuunto oo Gaalkacyo kula shiro guddigii maxaa la yidhahdaa ishag fidnada iyo balaayada la wareegayay ee uu Khayre soo dirsaday aad iyo aad ayaan uga xunnahay magac xumayna ku tahay asaga jaa'ifayna ku tahay beesha maxaa la yidhahdaa waxaan ka codsanayaa waxgaradka jooga magaalada Hobyo haddii Cabdinaasir jaamacseed uu ku soo laabto Hobyo ee uusan ka laabanin go'aankii qaldanaa ee uu kaligiis gaaray inuusan shirka Hobyo fariisan
uusan nala mateli karin raallina aana ka ahayn haddii uu fariistana wixii ka soo baxa inaan qaadici doono oo aan diidi doono mana raallina kama nihin waxaana codsanaynaa wuxuu shirkaas ku fadhiisan karaa inuu raaligelin buuxda ka bixiyo idaacadahana la hadlo go'aankii uu qaatana uu dib uga laabto haddaan nahay jaaliyadda maxaa la yidhaahdaa dibadaha iyo haddaan nahay jaaliyadda gudahaba markaan xiriir isla samaynay markaan wada hadalnay waxaanu isla garannay inuusan shirkaas cabdinaasir jaamacseed asagoo nagu matalahaya beesha sacad ku matalahaya inuusan nagu mateli karin raallina ayna ka ahayn uusan shirkaasna fariisan karin haddii uu fadhiistana guddiga maxaa la yidhaahdaa qabanqaabada shirka hobyo ayagaa ka mas-uula wixii ka soo baxana ma taageerayno raallina kama nihin aad iyo aad ayaa umahadsantihin farrintaasna laga gaarsiiyo waa anigoo cali xirsi kaarshaha oo ku magac dheer cali kabayr oo in salaamahaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh